السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan wareysi la yeelanaynaa maamo Jiddo ama hooyo Jiddo oo aan hadda ka hor halkan ugu sameynay wacyigelin caafimaad in ay ku dhasho xarunta caafimaadka ama cusbitaalka. maalintii aan wareysanaynay aad ayay ula yaabaneyd hadda waxa leedahay guriga ka soo tago halkan ku dhaa inay ku dhasho cusbitaalka iyadoo marar badan ku soo celcelinaysay maana reer guriga ku dhali karanta guriga ka soo tago. maanta xarunta ayay ku dhashay horteen ayay fadhidaa bal waan wareysan doonaa hooyada maanta adeegyada ay ka heshay cusbitaalka sida loogu shaqeeyay iyo kala duwanaanshaha u dhaxeeya guriga ay ku dhali jirtay iyo waxyaalaha kala kulmi jirtay iyo cusbitaalka ay maanta ku dhashay iyo waxyaalaha ay kala kulantay. sidoo kale waxaan ka codsanayaa hooyo Jiddo gabadheeda maanta inay ugu magac darto maadaama aan qayb ka ahay inay ku dhalato cusbitaalka. haye soo dhawo hooyo Jiddo. assalaamu calaykum. soo dhawo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ما تسنتهاي مقعد محوها magacayg maka weeye. مكة ما تسنتهاي ما تسنتهاي هاي دوا ويات بعد ما تسنتهاي haye soo dhawow su'aalaha rabaa inaan ku weydiiyo soo diyaar ma tihiin? ها عادي ويدين كرتا soo dhawow waxaan su'aashan ku weydiinaya waxaa weeye ii sheegay maxaad ka aaminsanay cusbitaalka iyo in lagu dhalo dhalmadiisa intaad guriga ka soo tagto in cusbitaal ku dhasho maxaad ka aaminsanay maadaama maanta la yaab kula ahayd? ها maalintii hadda marka adeeg ii sheegaysay wuxuu ila ahaa wax maaragtay aan dhici karinin gurigaaga ka soo tago guri kale ku dhal wax ila noqoto wax adag yani shay aanan horeyna u arag ugu cusub buu ahaa. marka waa taad ii sharaxday oo igu tiri isbitaalka xaaladahaaga oo dhan baa lagu daweynayaa adigoo dhan baa lagu daryeelayaa adiga ilmahaaga daryeel helaya dhiig baxaa lagaa ilaalinaya daawooyin baa lagu siinaya waa adigii sharaxaad dheer ii galay si fiican. anigii markaa miyigii ku noqday baa sharaxaadii wixii aad siisay maaragtay hadalkii baabanta isla celceliyaan waxaan is iraahday wala gabadhii waxay kuu sheegtay waa wax fiican buu ahaa sababto waa taad i tiri hadda ka hor dhiig bax kugu dhacay haddana inuu kugu dhaco waa u nugushahay sax. marka waxaan idhi wala gabadhaas warkeeda waxbaa ku duugan. maalinta waxaad ku tiri dad baan soo wareysanayaa bal inay dad ma wareysato. waa wareystay oo waa liigu yidhi isbitaalkii dad baa lagu daaweeyo islaamaa lagu daaweeyo islaamaa dhalo kuwaa dhiig lagu shubayo warbixin badan baan deegaankii ka hela anigu waxaan u qabay inta la tago in lasis ku soo daaweeyo qofka daawooyin kaniyaali wax inta lasoo siiya iska soo noqdo maan ogeynba in inta lagu dhalo dad dhiig lagu shubayo xataa qalin baa jira alyir meesha waxbaa lagu qalaabaa layiri warbixintaas oo dhan baan deegaankii ka soo helay marka waxaan siri meeshii meel maaragtee muhiim waxay ahayd waa inaad ku dhasho aad ku noqotaa. marka Jiddo waxaad iiga warantaa maadaama cusbitaalka ku dhashay xalay oo aad fiicantahay caafimaad qabto aadan dhigbax iyo balaayo ilaahay kugu keenin bal sidee lagugu adeegay sidee lagugu shaqeeyey maxaad kala kulantay wax miyaa dhibaataa kala kulantay bal war naga siiban sidii lagugu shaqeeyey adigii gabadhaada. may walaahi walaale si cajiib ahaba la iigu shaqeeyey kama sheekayn karo dee gabdho islaamiyad oo aadan garanahayn oo intaa u timaadid kuu adeegayo oo midu maaragtay daawo ku siinayso midu ku dhalinayso midu dhiiga kaa nadiifinayso midu ilmaha ku haynayso kaal iska arag lagama sheekayn karo warmiyiga adeegaasuba ma yaalo waxaa laga yaabaa adoo ilmuhu kaa soo jeedaan in islaanta dariskaa lagugu yeer inta islaantii maqaneed ay ilmuhu kusoo dhaafaan waa dhici kadha inta lagu maqnaayo oo dhulka ku dhaco ilmuhu dhulka ku dhaco adigii dhib ku gaadho gabdhaha kane inta islaantii maqaneed ay ilmuhu kusoo dhaafaan waa dhici kadha inta lagu maqnaayo oo dhulka ku dhaco ilmuhu dhulka ku dhaco adigii dhib ku gaadho gabdhaha kane dhibkiiba adigaa lagaa ilaalinayo yaada isku goyn yaasaan yeelin waaba ku ilaalinayaan waxbaad moodaaba inaba kula dhasheen oo kale yani siday kuugu adeegayaan lagama sheekayn kara gabdhahaasi ma garatay sax. marka si fiican baa la iigu adeegay aniga ilmahayga markaa dhalay kadib baa inta markii lasoo kala xudumiyey aniga sariir baa la geeyey ilmihii gooy baa loo jiifiyey waxa la yiraahdo cunuga yaroo kale wuxuu u baahan yahay gabdhuhu qabanayeen waa la cabiraya aniga waa la cabiraya waa la ifiirinaya halkaas cidku cabiraysa iyo cidku og male islaantii waa dhashay unbaa laiska kaa leeyahay oo maxaa dhashay wiil bay dhashay gabar bay dhashay in la dhaho moogi cid kale oo wax kuu qabanaysa oo lama arko in cunto qofka la siiyo waa wax dhaco oo la dhaho waxa loo kariyo laakiin wax kaloo lagu qabanayo male halkaan xanuun yar haddaad dareento xanuun baa saa u dareema haddaad tiraahid kiin waa lagula soo ordaya baleen baa lagu xiraya waa lagu cabiraya cabaar kadib baa lagu imaanaya maxaad dareemaysaa ma dhiig baxaysaa haye waa ku fiirinaya waaba lagu fiirinayaa halka ayaa ku fiirinaya cidku ogba male markaad dhashaa dadka kugu dambaysa qofkasta gurigiisiba aaday marka walaahi sida la iigu adeego walaale kama sheekayn karo waxayba noqotayba wax la yaab ugu noqda xal walba isla sheekaysanaya anoo keliga
gabdhahan saa iigu adeega xataa gabdhaha qola ay ahaayeen garan mahayo marka waxaan la yaabay bay noqoto waxaan la yaabay noqoto soo dhawow jiddo su-aasha kale aan ku weydiina waxay tahay haddii ilaahay ilmo dambe ku siiyo ama aad uur dambe yeelatid ilaahay baa awlaada bixiya ma ogtahay hadduu ilaahay uur dambe ku siiyo maxaa kuu qorshaysan ma inaad miyigaaga iyo gurigaaga iskaga dhashay mise inaad maanta maadaama custaalkii baratay adeegiisa iyo shaqadiisa iyo waxaad u baahantaad ka helayso iyo daryeelkiisa iyo keerkiisa mise inaad custaalka saas aad maanta u baratay ugu dhashaa rabtaa maya hadduu ilaahay ilmo kale siiyo inaan meeshii xal aan ku dhalaan raba hadduu ilaahay inaan isbitaalka imaadaan raba meesha saa la iigu adeegay wax la deyn kara maba ahaan wax la deyn kara ma meesha hor silciisa xariir baa baadiye yaallay maxaa baadiye iyo meelaan dhakhtar lahayn yaallay meesha tan dhulkaba lagu dhigi mahaya saasaa lagu sidaya adiga iyo ilmahaaga iyo adeega iyo kala orodka iyo wallahi gabdhaha dhididkii baaba ka dhamaaday si u kala ordayay aniga darteeban intaas u ordayay waa gartay marka meeshani meel la deyn kara maba ahaan si fiican marka waxaan jeclahay inaan maaragta aniguna ku dhalo ciddi kaloo ehel ah oo markaa joogto oo dhalmo iyo maaragta arrimaha wax la xiriiro u baahanna ay ku dhalaan oo imaadaan si fiican saasaan leeyahay su-aasha kale aan ku weydiinay jidda waxay tahay bulshadii aad ka timid iyo dadkii miyiga jooga dad badanoo waxaa jira adigoo kale ah soomood maalintii la yaab kula ahayd inaad custaalka timaadid oo maalintii dhan waxaad ugu soo celisay maalaha sariir reer leeyahay ku dhalanta guriga kasoo tago dad badan baa aaminsan moogtahay dadka maxaad wacyigelin ama maxaad ku celinaysaa maxaad u sheegaysaa dadka fariintaad u geynayso ama gudbinaysa muxuu yahay dadka yacni anigoo kale ahaayo adigoo kale ahaa waxba moogtahay bulshadii aad ka timid iyo dadkii miyiga jooga dad badanoo waxaa jira adigoo kale ah soomood maalintii la yaab kula ahayd inaad custaalka timaadid oo maalintii dhan waxaad ugu soo celisay maalaha sariir reer leeyahay ku dhalanta guriga kasoo tago dad badan baa aaminsan moogtahay dadka maxaad wacyigelin ama maxaad ku celinaysaa maxaad u sheegaysaa dadka fariintaad u geynayso ama gudbinaysa muxuu yahay dadka yacni anigoo kale ahaayo adigoo kale ahaa waxba moogtahay hawl bayba u arkayaanba inay custaalku dhalaan yaab intaan gurigayga kasoo tago boorsadayda iyo dharkayga soo qaatan meel kale u socdasaan u soo dhaco dadka wax yaab bay la tahay moogtahay sax weeye dadkaas maxaad siinaysaa fariin oo aad ugu sheegaysaa dadkaas waxaan leeyahaa war wixiina ogeyn baa jira sax meel isbitaal yiraahdo oo lagu dhalo oo lagugu daryeelayo oo lagugu caqeelayo oo lagugu daweynayo oo saa lagugu orday baaba jirtee waana ka warla-dihiin aadaan leeyahay oo ku dhala aada iyo aad oo maalin walba xaaladaha iyo dhibaatada iyo rafaadka meesha yaal iyo hooyada dhigbaxda iyo midda isku dilaacda iyo dhibaatada iyo waxaasoo dhan looga hortegayo si fiican gabdho kuu kala ordayo oo adiga dartaa u dhididayo oo waxaad u baahataba daqiiqad kuu qabanayaan joogaan leeyahay si fiican marka miyigaas iyo meelihaan ka imid anaa warbixintaas gaarsiinayo warbixintan u sheegan waa inay isbitaalka ku dhalaan aadaan ku xirnaadaan waxa la yidhaahdo adeegyada ay ka warla-yihiin ay ka war doonaan isbitaalka bal soo fiiriya waxyaalaha ka jira aada iyo aad aad baad umahadsantahay jidooy waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan maalintii waa kugu daala horta saan kuu siinay wogta saa wixii iila fahatay wax weyn bay kula noqotay laakiin waxaan ku faraxsanahay inay warkii miri dhalayo aad custaalkii timido dhiigbax iyo balaayo iyo dhibaatadii iyo koomadii aad geli jirto ilaahi subxaana watacaala tiriibkan aadan is arag si fiican lagugu shaqeeyey lagu daryeelay adiga ilmahaaga aad qurux badantiin maanta iyo hor fadhidaan laakiin ilmaha ma igu magac daraysaa gabadha magacaaga marku ahaa soo maa iigu magac dar gabadhan magacaagaan u bixiyaa waaya laakiin wadaadka inaan u sheego weeyo anigu inta badan ilmaha magaca uma baxsho wadaadkaaba u bixiya si fiican isagaa magacyada bixiya marka waxaan leeyahay gabadha ii adeegtay oo ii ordaysay oo saa iigu adeegtay baa magacaas lahayd magacaas u bixi hadduu iga yeela hadee iga yeel haddii kalena dhib male haddii kalena saas weeye dhib male jidway soo dhawow xarunta waa xaruntaadii mar walba waa imaan kartaa xitaa haddeer haddaad dhashay saa ku tagtay hamoodin inaad iska maqnaanaysa waxaad u baahantaa waa kusoo noqon kartaa adeegyo hooyo friyaad ka helaysaa dawooyin friyo fitamiina lagu siinayaa ilmaha yarkaaba xaaladiisa tallaal buu ilmuhuna qaataa ma ogtahay inuu ilmuhu tallaal qaato isaguna tallaal buu ilmuhu leeyahay tallaal tiibeyda looga hortago ilmuhu markuu dhasho haddeeraan siinaya isaga ma fahantay ka yar baad mudaysaa tallaal tiibeyda looga hortagaa jirto ilmuhu leeyahay hadhow markuu ilmuhu 2 bil joogo tallaalo kaluu leeyahay tallaaladaasoo dhan inaad ilmaha u dhamaysaa la rabaa ma fahantay hadda xanuunaha waddanka iskaga batay xanuunaha iska jiro oo ka hortag ba carruurta loo siiyaa xanuunada laga hortagaa
marka insha Allah talaaladaana ilmaha siiso xarunta kula soo noqnoqo adiga iyo ilmaha caafimaadkiina waa lala soconaya ma fahanti marka insha Allah soo dhawow mar labaad waa ku soo dhaweynaya